marka la isku soo noqdo wanaagsan waxaan ku hormarayaa marka hore sidee dunida ay kaga falcelisay heshiiskii xabad joojinta ee lagu dhawaaqay. saacadii ugu dambeeyay dawladda Pakistan ayaa bixisay dadaalkii ugu badnaa oo dagaalka lagu soo gabagabeyn karo. qorshaha marka hore wuxuu ahaa in maalmo dheeraad ah lagu daro si looga shaqeeyo heshiis ay gaaraan Mareykanka iyo sidoo kale dawladda Iran. laakiin markii dambe waxa si toos ah loogu dhawaaqay heshiis xabad joojin ah oo 2 toddobaad ah. dunida oo idil arrintan way soo dhaweysay waxaana ay ku tilmaameen in neef ay ka soo fuqday dunida maxaa yeelay waxa la isweydiinaya madaxweyne Trump go'aan noocee ah ayuu qaadan karayaa ka hor intaanan heshiiskan lagu dhawaaqin ma wuxuu fulin doonaa duqeyn aad u culus mise Indonesia, Australia, Japan, Malaysia, Masar, qaramada midoobay, Iraq iyo dawlado kale oo caalamka ah ayaa si weyn u soo dhaweeyay heshiiska xabad joojinta oo dawladda Pakistan ay ka shaqeysay. laakiin dhanka Israel sidee looga arkaa heshiiskan? hogaamiyaha mucaaradka ah ee Israel Yair Lapid ayaa si adag u hadlay. waxa uu yiri hogaamiyaha mucaaradka waligay ma aanan arkin musiibo siyaasadeed oo sidaani oo kala ah taariikhdeena. Israel wax saameyn ah kuma lahan go'aanada ku saabsan amniga qarankeena. wuxuu musiibo siyaasadeed uu ku tilmaamay heshiiska madaxweyne Trump uu ku ogolaaday 14 maalin oo xabad joojin ah. 14 ka maalin la doonayo in heshiis rasmi ah la gaaro si toosana dagaalka loo soo gabagabeeyo. taas waxay ka dhigan tahay Israel inaysan ku qanacsaneen heshiiska xabad joojinta ah sidoo kalena aysan filaysanaynin. maxaa ka dhashay heshiiskaasi kadib markii la gaaray? waxa hoos u dhac weyn uu ku yimid 20% qiimaha gaaska oo ka hor xalay intaan go'aanka la gaarin ilaa $110 ayuu ku dhawaa qiimaha fuustada shidaalka ah. laakiin hadda 96 ilaa $95 ayaa lagu waramayaa inay sii marayso waana suuragal inay ka sii degto intaan barnaamijkan diyaarintiisa ku guda jirno. sidoo kale 6% waxaa sare u kacay qiimihii suuqyada isu taga Imaaraadka Carabta. isbedel weyn ayaana dunida ku yimid kadib go'aankii madaxweyne Trump iyo heshiiskii dawladda Pakistan ay ka shaqeysay. haddii aan eegno madaxweyne Trump qoraal uu soo dhigay bartiisa sida gaarka uu leeyahay Truth Social Media la yiraahdo waxa uu sheegay tani inay tahay maalin weyn oo dunida ah oo nabad loogu talagalay. wuxuu sheegay in dawladda Iran sidoo kale ay aqbashay wax walba ayna ogoshahay fulinta wax walba. waxa sidoo kale uu sheegay inay ka shaqeyn doonaan arinta marinka Hormuz. qoraalkiisa markaad eegto waa arin uu libin uu ku sheeganayo. wuxuu la hadlay shacabkiisa wuxuuna fariin u diray dawladaha qaliijka. wuxuu yiri shacabka Mareykanka dhaqaale badan ayay heli doonaan. si dadban ayuu u leeyahay dhaqaale badan ayaa la heli doonaa. wuxuu sidoo kale shacabka iyo madaxda dawladaha qaliijka uu ku yiri waxa la gaaray xilligii da'da ama fici dahabka ee dawladaha bariga dhexe. maxay kula tahay hadalkaasi sababta uu isticmaalay madaxweyne Trump? aragtidaadana la wadaag. waxa isweydiin mudan yaa Iran u heliyay saacadihii la soo dhaafay. sidaan ognahay madaxweyne Trump qorshihiisu wuxuu ahaa in la beegsado ama la bartilmaameedsado xarumo dhowra oo ku yaala gudaha dalkaasi Iran. laakiin taasi waxay ahayd kaar cadaadis oo Iran la doonayay in wax walba ay ku ogolaato. saacadihii ugu dambeeyay shacabka dawladda Iran ayaa qaatay go'aan geesinimo leh. waxay isugu soo baxeen buundooyinka iyo xarun kasta oo ay tuhmayeen ugu yaraan Mareykanka iyo Israel inay doonayaan inay weerar ku qaadaan. waxay buux dhaafiyeen buundooyinka iyo xarumaha tamarta si gaar ahaaneed gobolada muhiimka ah ee dalka Iran. waxaana la yaqiinsaday taasi inaanay suuragal ahayn in weerar wadajir ah Mareykanka iyo Israel ay fuliyaan oo ay beegsadaan goob ay qalqi aad u tiro badan ama kumanaan ruux ay ku sugan yihiin. sidaa daraadeed shacabka dawladda Iran ballanqaadkoodii ah inay dawladooda garab istaagayaan way ka soo baxeen. laakiin waxa isweydiin mudan dagaalkani kadib dawladda Iran casharadii ay baratay iyo dadka dhexdeeda ku jiray suuragal ma tahay inay ka adkaato? waxaan rabaa intaanan falanqeyntaas oo idil aan eegin oo barnaamijyo kale si gaar ahaaneed ugu falanqeyn doono insha Allah aan kula wadaago 10 qodob ee dawladda Iran ay soo bandhigtay. wargeyska lagu magacaabo Russia Today waxa uu leeyahay 10 qodob si duuduub ayaa loo aqbalay. laakiin warbaahinta dhinaca kale waxay baahinaysaa 10 qodob inay hordhac u yihiin wada hadallada maalinta Jimcaha ah 11 bishan ka dhacaya magaalada Islamabad oo caasimadda dalka Pakistan ah. oo magaaladaasi markii ugu horeysay wada hadal toos ah waxa ku yeelanaya wakiilada Mareykanka iyo sidoo kale dawladda Iran. aan kula wadaago 10 qodob ee dawladda Iran ay soo bandhigtay. 10koodaba haddii sidooda loo aqbalo guul miyay u tahay dawladda Iran mise waan arki doonaa.
waatan koowaade in Mareykanka si mabda ahaan uu damaanad qaado mar dambe inuu weerar ku soo qaadi doonin. labo in Iran ay iyada maamuli doonto ama ay xakameyn doonto marinka Hormuz, laakiin dhanka dhaqaalaha waxa la wadaagaya dowladda Cumaan sidaan arki doono. saddex in la aqbalo barnaamijka nuclearka iyo kobcintiisa Iran inay sidiisa u wadato dhanka tamarta iyo dhanka rayidkan ay u isticmaali doonto barnaamijkeeda korontada nuclearka. afar in la qaado dhammaan cunaqabataynta tooska ee la saaray dowladda Iran. shan in la qaado dhammaan cunaqabataynta labaad ama secondary sectionka wax loo yaqaano ee madaxda iyo xubnaha kala la saaray ee dowladda Iran. lix in la joojiyo dhammaan go'aanada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ka dhanka ah dowladda Iran. toddoba in la joojiyo go'aanada golaha hay'adda ama gudoomiyaasha hay'adda IAEA da loo yaqaan ee tamarta caalamiga ah. in Iran magdhow la siiyo oo qodobka 8aad ah. sagaal in ciidamada dowladda Mareykanka ay ka baxaan bariga dhexe, waana mid ka mid ah qodobada ugu adag ee dowladda Iran horeyna miiska u soo saartay. iyo qodobka 10aad oo ah in la joojiyo dagaalada dhowrka jiha ah ee ka dhanka xulafada dowladda Iran, waa Xuutiyiinta hadii ay noqon lahayd iyo sidoo kale hadii ay noqon lahayd dhinaca iyo Xisbullah. maxay tani ka dhigan tahay? waxay dowladda Iran ay ka dhigan tahay wixii hadda ka dambeeya marinka Hormuz in iyada canshuur ka qaadi doonto oo halkii magdhow laga siin lahaa $2 milyan ku dhawaad ay maraakiibta ay ka qaadi doonto. lacagtaasina waxa la maamuli doona dowladda Cumaan, waxaana ay dib ugu dhisan doontaa dhammaan xarumihii laga burburiyay. dhinacaasi markaad eegto Iran soo faa'iido ma qabto. dhinaca kalena waxay tani ka dhigan tahay dowladda Iran inay si buuxda u maamuli doonto marinka Hormuz oo markii kaleba dowladihii Khaliijka iyo dowlado kale ayaa isku dayay inay saameyn ku yeeshaan in arinta ku saabsan maamulka marinka Hormuz. maxay tani sidoo kale ay ka dhigan tahay? ma waxay ka dhigan tahay 100% dowladda Iran wixii hadda ka dambeeya inay iyada maamuli doonto marinka Hormuz oo 20% shidaalka caalamka uu ka gudbo? miyay noqon kartaa mar kale kaar cadaadis oo weyn oo dowladda Iran si buuxda ay gacanta ugu dhigtay wixii hadda ka dambeeya aan lala sheegan doonin? sidoo kale miyaa la isdhihi karayaa tani waxay ka dhigan tahay Israel iyo dowladaha Khaliijka waxay yaqiinsadeen oo ay ogaadeen ama ay garwaaqsadeen inaanay sahlaneyn dagaal lagu qaado dowladda Iran. haddii lagu qaadana sagxada la soo wada taaban doono oo cid gaar ah aysan guuleysan doonin. oo sidoo kale Trump miyuu dareemi doonaa meel cidla inuu ku soo dhacay markii Iran weerar uu ku qaaday, maadaama dowladihii gaashaanbuurta NATO iyo dowlado badan ay diideen inay ugu heeliyaan weerarkii lagu qaaday dowladda Iran? waa su'aalaha la isweydiinayo iyo casharada Mareykanka uu ka baran doono kuna dabaqi doono siyaasadihiisa dambe marka la eego guud ahaan gobolka bariga dhexe. xabajoojinta ay dowladda Pakistan ay ka shaqeyso waxa dadaalka ugu badan ku bixiyay ra'iisul wasaaraha dowladda Pakistan iyo sidoo kale taliyaha ciidanka oo nin awood badan leh. waxa la isweydiinayaa muxuu Mareykanka Pakistan kaga aqbalay soo jeedintan oo dowlado kale aan looga ogolaanin? sababtoo Pakistan Mareykanka kama kaftamo marka gobolkaasi la joogo. dhinaca kalena sanadii ugu dambeeyay ama muddooyinkii ugu dambeeyay waxaad moodaa Pakistan inay fulisay howlo Mareykanka uu doonayo inuu fuliyo oo ah hubkii ay kaga tageen dalka Afghanistan in la baabi'iyo. dhinaca kale waxaad moodaa in dowladda Pakistan ay duqeyso xarumo badan oo hubkii Mareykanka u yaalay si tartiibana loo baabi'iyay awoodii dhanka iyo Taliban, maadaama ay xiriir fiican ay la leeyihiin Shiinaha iyo sidoo kale dhanka iyo dowladda Ruushka. maalinta Jimcahana waxa la filayaa halkaasi wada hadal inay ka dhacaan. waxa la isweydiinayaa marka su'aal kale oo ah dagaalkan inuu soo ilaado maxay Netanyahu uga dhigan tahay? warbixin dheer oo telefishinka Al Jazeera lagu daabacay ciwaana looga dhigay muxuu Netanyahu wajihi doonaa kadib dagaalka Iran marka la soo gabagabeeyay. nuxurkeeda ayaa waxay tahay in Netanyahu aysan u wanaagsanin waqti xaadirkan fashilka siyaasadeed ama waxa uu la kulmay marka la eego inuusan gaarin ahdaaftii markii hore dagaalka loo galay iyo in dhanka Lubnaan xogaa markaan haddana culays kale laga soo saari doono. inkastoo warbixinta ay aad u dheereed haddana waxa lagu tilmaamay tani inay tahay guul ay Iiraaniyiintu ay gaarayaan iyadoo dhinaca kalena maxkamadda caalamiga ah ee dowladda maxkamadda caalamiga ICC aan iraahday ay baadigoobayso ra'iisul wasaare Netanyahu gudaha aad looga kacsan yahay. xitaa qaarkood siyaasiyiinta ay taagan yihiin waa in Netanyahu iyo xukunkiisa iyo dadka gacanta ku haya nidaamka maamul ee Israel aan ka fiirsana isbedelna aan la nimaada. taas marka waxa la yiraahdaa caqabad weyn ayay ku noqonaysaa ra'iisul wasaare Netanyahu, waxaana suuragal ah siyaasadiisa ama hoos u dhac weyn inuu ku yimaado saameyntii siyaasadeed oo ku lahaa gudaha Israel. dhinaca kalena dagaalka Iran iyo Iran siday u adkeysatay iyo in iyada hadda
jug kasta oo gaartay waxyeelo kasta oo la gaarsiiyey goobo badan oo laga burburiyey madaxdii laga dilay marka laga yimaado miyaa la isdhigi karaya adkaysigeeda waxa uu qaabeyn doonaa awoodii dunida yani balansiga dunida ama dheelitirnaantii awoodeed ee dunida laga soo bilaabo Ukraine ilaa laga yimaado wadamada qaliijka sababtoo ah Iran saameyn weyn ay ku yeelan doontaa siyaasadda hadda wixii ka dambeeya bariga dhexe mar hadiiba dhaqaalihii marinka Hormuz loo ogolaaday suuragal ma tahay dhinaca kale in la diyaarin karayo qorshe kale oo marinka Hormuz looga maarmo miyay dawladaha carabtu ay ogolaan doonaan soo jeedintii ra'iisul wasaare Netanyahu oo ah in shidaalkooda Sacuudiga la marsiyo dhulka laga gudbiyo ilaa laga geynayo dekada Haifa oo miya dib loo soo nooleyn doonaa qorshaha wadada dheer ee la doonayay laga soo bilaabo qaliijka ilaa Israel si shidaalkooda halkaasi looga iibgeeyo mise Iran sideeda ay u maamuli doontaa marinka Hormuz oo dhaqaale badan ay ka sameyn doontaa saameynteedana miiska miya la soo fuuli doontaa mar kale oo ma loo aqoonsan doonaa awoodii shalay ay lahayd mid ka weyn in Iran miiska la timid adkaysigeedana oo u keenay iyo awoodeeda gantaalada dawladaha qaarkood ee qaliijka waxay lahaayeen Iran oo cunaqabatayn ay saarneed muddo 40 sano hadii awood inta la eg ay lahayd soo suuragal ma ahan hadda cunaqabataynta laga qaado dhaqaale inta la eg ay ka sameeyso marinka Hormuz inay ka awood badato sidii markii hore ay ahayd soo miiska lama imaan doonto Iran wax walba ay doonayso gaar ahaan bariga dhexe waxyaabaha ama go'aanada la doonayo in laga qaato suuragal ma tahay hadda kadib in loo yeero dawladda Iran dunidu sidee ay u ekaan doontaa dagaalka Iran kadib sidee xaaladdu noqon doontaa waa waxyaabaha la isweydiinayo insha Allah barnaamij kale oo gaar ah oo ku saabsan falanqayntan yaa guuleystay yaa qasaare soo gaartay maxay tani ka dhigan tahay maxaa ku qasbay madaxweyne Trump dib u gurashadan arrimahaas oo idil su'aalahaas iyo su'aalo kale oo ku saabsan insha Allah ta'ala barnaamijyadeena kale ee xiga ayaan si gaar ahaaneed ugu falanqayn doonaa maadaama aan qaybtan ugu talagalnay kaliya waxyaabihii dhacay saacadihii ugu dambeeyay inaan kula wadaago wararka qaar ee soo baxay waxay sheegayaan in inkastoo heshiis xabad joojina la gaaray in Israel weli gantaale ku duqeysay qaybo badan oo kamid ah gudaha dalka Lebanon waxaa sidoo kale soo baxaya madaxweyne Trump in gudaha hadda looga kacay oo qaar kamid ah xubnahu ay dalbanayaan yani xilka qaadis iyo waxyaabaha la midka ah dawladda Oman wasaaraddeeda arrimaha dibadda ayaa waxay soo saartay qoraal ay ku leedahay hadda ayaa la joogaa waqtigii rasmiga ah yani wada hadalka rasmiga uu dhici lahaa Oman dhanka marka waxaad muddo xoogaa inay dawladaha qaliijka ka duwan tahay oo iyada ayaaba Iran la maamuli doonta marinka Hormuz dhaqaalahana qayb ay ka heli doontaa qaar kamid ah xubnaha ugu sareeya golaha amniga ee dawladda Iran waxay leeyihiin madaxweyne Trump la isku mahaleyn karayo si dhow ayaan ula soconaynaa wax walba dawladda Bahrain waxay sheegtay maanta weerar inay la kulantay oo laba ruux oo rayid ah ay dhaawacmeen sidoo kale midowga Yurub iyo dawladaha kale waxay soo saarayaan qoraallo ay ku soo dhaweynayaan heshiiska xabad joojinta ee la gaaray dawladda Spain sidaas oo kale ra'iisul wasaaraha dawladda Ingiriiska wuxuu yiri sidii arrinta loo dhaqan gelin lahaa annagana il gaar ahaaneed ayaan u yeelanaynaa arrimahan oo idil wax walba oo ka soo kordhay waan kula wadaagi doonaa insha Allah aad baad u mahadsan tahay like saar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada una diyaar garow insha Allah ta'ala barnaamijyadeena xiga oo inta badan aan falanqayn diiradda ku saari doono waad mahadsan tahay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh amaana Allah